warmeeshu gal raafka ku xariisan yahay u daawa sayadii cudurro badan oo muslimiinta ku soo socdo ka difaacaya tukada iyo taariikh wada toy toobad liidaan tiiray kugu nacay calafka waxaa ka mid ah calaf buunsha iyo la isku daray maankaal oo la isku riiqay maankaalku waa maxay markaa maankaal waxaa weeyaan macsarta iyo buunsha la la iskugu darayaa sifo caana looga raadiyo galab wanaagsan saaxiibayaal waxaan idin ka soo salaameynaa duleedka degmada Dhagaxle ee gobolka Faafan warmeeshu gal raafka ku xariisan yahay u daawa sayadii duleedka degmada Dhagaxle oo galbeedka kaga beegan ee magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida waxaanu galabta soo booqanay geel kamid ah geelasha meeshan ay gala lagu xanaanayo miyaan dhahaa mise lagu dhaqo waxa garabkayga taagan duqi caldaanta aha oo aad wada garanaysaan oo galabta meeshan aanu u soo wada dalxiis tagnay caliyow soo dhaw marka hore ka waran farqiga u dhaxeeya geeli aad arki jirtay qaabkii loo dhaqi jiray iyo kan galabta meeshan aynu ugu nimideen soo booqan geelan meeshaan ugu nimidnay waa sida aan rabnay inaan u tilmaano ummadeena inay wax u dhaqdaan sax waa sida aan doonayno inay sameeyaan mustaqbalka marka geelu hadduu ku hogaamiyo waad uun ku daba dhimani aad iyo aad laakiin adigu geela hogaamisid oo aad cawsna u beerto oo calaf fiican aad siiso caana badan aad ka hesho adigoo nasan iyo geelaagii oo nasan aad isgarab joogtaan wax ka wanaagsan ma jiro dabcan farq weyn baa u dhaxeeya loo dhaxeeyaa geeli la daba socday la daba rafaadayay intii macawsa halka la geysto dadka haarufta iyo qofka wadana aad ka cararayso oo soranayso qofka qof nool maaha oo qof waalan baad sorani aad iyo aad marka hadda geeli sabeenka dhawayta abaarti dhacday geeli laga keenay qarin baa dhoobo weyn biyo cabay lacagtiisna laga qaaday anagoo jiyo joogno anagoo qurbo joogno soo daray geeli cabay bal ninkaas ma manfaacsaday xamuna manfaacsan aan kugu daree nin geelay ah ya hadda ka hor u heesayay geela haye isagoo oo tilmaamaya rafaadka iyo dhibaatada uu u maro ama uu geelu ku hayo midda ugu weyn oo ah cibaado la'aan inuu magaranaysaay marka qaarkood inuu laga dhaxlo marka goobtii biyaha la fogaado ee biyaha la isku daahirinaya la waayo weysadii la waayo dhibaato badan oo ma taxta cibaado ahaan in maartay kaana qusanaysa ku sameynaysa ka dhalata marka wuxuu yiri ma tukada iyo taariikh wada toy toobad liidaan tiiray kugu nacay ninkaas marka wuxuu ka hadlayay marka wuxuu ka hadlayay dhibaatada iyo biyo la'aanta iyo qarfaha iyo hawdka lala jabaaxayo adaa ku watee marar baa laga yaabaa geel iska qaada dhowr 10 bari sax marka haddaadan biyo ba arkin waa rafaad aad iyo aad marka tani waa fariinta ugu wanaagsan ee dadkeena xoolo dhaqatada ah war dhaqaw dheefsan afka xaqiisa dhowr nimeeyo aad badan baa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ahay xasan siyaad aniga oo la joogo geela oo ii imaadeen galabta oo isniin ah geelu wuu fiican yahay aad buu fiican yahay insha Allah halkan hadda nirgihi baa ku xareysan halkan hadda waxa ku xareysan nirgihi geelan kalena wuxuu yahay geel yar xanuunsan oon xareynay sifo geela kale uu ursanin geela kale uu fiican yahay qarrida aad barwaaqo badan baa maanta taal ilaahay baa mahad leh ما شاء الله ونسود ويننا هذا صدق ملود يكون حريصين دقوه وصدق خلاص هكا جيل بكو حريصين هلا كان دحين رجال بكو حريصين جيلان هلهان كره وحا ويان علف gaar la siiya waxa weeyaan halahan laga rabaa caano in laga raadiyo marka calafka geela kala cunayo mid ka duwan baa la siiya calafka marka maxaa kamid ah calafka waxa kamid ah calaf buunsha iyo la isku daray maankaal oo la isku riiqay maankaalku waa maxay markaa maankaal waxa weeyaan macsarta iyo buunsha la iskugu darayaa sifo caana looga raadiyo marka wuu cunayaa waxaa loogu dhigayaa tashtiyo wuu cunayaa ka bacdi biyaha laga waraabinayaa ilaa waxaa loo qasayaa 4 jeer إلا أفر شير بالله قصير حرده كما بحان إنتين اللي مرة جيلك الكعانة بدن يداق عادي قعنا هذا قرده وانكو بلوني وحاويان وحن رجينا كله سيدي قلادي صوص صارتي سيدي أي نتيري يو سيدان كرجينا نبا إنه عادي عانة بكينا عادي عانة بكينا يعني كرجينا ير هذا كوا وين لباك لما يردك حريسين يرجوه وحاويان لباك لما يرد بكو حريسين ولا بحرة
nirgo waaweyn iyo nirga yar yar ah ay isku dhex yaalaan nirgaha yar yarka waa geel cusub hadda la soo iibiyey kii oo kalena waa kii hore xerada sii joogay saasaa loo kala xaraynhayaa geela marka xagee laga soo iibiyaa ma faafan iyo geelu kolley wadankan waxaa weeyaan daaqato uu badan yahay xaggan wuxuu u yar badan yahay bariga yaa laga soo iibiyaa inta badana marka waxaa weeyaan geelu qorshihiisu waa nooca aad u fiican hadda halkan waxaan ku arkaynaa geela oo daaq gaari loogu keenay oo halka jiingada loogu rogay oo daaqii sidaan ku cunaya geedka magaciisa baa la yiraahdaa geedka waxaa la yiraahdaa birsiin birsiin baa la yiraahdaa waa geed la beero la waraabiyo sida beerto biqilka oo kale xaguu ka baxaa markaa wuxuu ka baxaa carra uu meesha loo geela asaga loo iibiyo xagga toga faafaneed yuu ka baxaa oo lagu beeray waxaa asna lagu raadinhayaa caano iyo cad iyo geela inuu adumaad ku fiicnaado ayaan lagu raadinayaa maalinka markaa ma foofayo maalin iyo habeen halkaasuu maartay ku nagaanaya geela miya wuu foofayaa geelu geelu foofayaa halka saaca subaxnimuu dabreerayaa sideedda maalinimee dambana wuu imaanayaa magacayga walaal xasan siyaad xasan oo walaal waxaan rabaa inaan Soomaalidu sheeko kala duwan bay geelu dhaqataa sax wey qaar waxaa jira hawdka iyo qarfaha daba socda sax wey halka aad ugu rafaada sax wey lagana yaabo ninka halkan maanta ku dhaqanaya inuu ka manaafacadsado sax wey waxaad ii sawirtaa farqiga u dhaxeeya hadda geelan laga yaabo inaad adigu kana aragtay sax wey farqiga u dhaxeeya maxaad ku qiyaasi lahayd aniga oo kula hadlahayo oo xasan siyaada hadda annaga waxaan leenahay geel boqolka ku dhow wuxuu jiraa baadiyaha kana waan u imid oo halkan aan ugu imaaday inaan ka shaqeeyo لأنما محايلي جيلا روحي هراء وحو كشقين شري إنه كنا أقون هام بحال كان لو كينيا تدك كشقينا يوادد لحوليه وجيل هراء يقاني آدي آد فرق وين بعود حياة ومحايلي جيلي وجيل وحويان دكان وعلى قدك حقنا وجيل حقنا ودكانية مسلمين تي وحي ما تقرنا يساعد عاني سلوكية ويكفي عنانيان كما حمانيان عذر بدن أو مسلمين تكسر سعودية كدفاعية. هاشو مركا أي صالحان أي قدوة. هاشو مركا قدوة كله. من العلنا ما العلنا يايو مديبة لو يبين يان بس أنت عيد على يسوع ولا حنانين. ديبة لو يبين ياهش. لأن ما محايا لمش والدكان وحال جرب حال إرمان. نف كورن لقى مكربه. كيلا نف كي مقاشون هدي وين هذا يوحي كورن بديبة لو يبين يا. كيل كلا إرمان بلقو بدريا. كيلا قرشي سوا صا. وحاويان والدكان. دكان ويجيلن قرشي. أرديس. هاد قلت كلوضع. أنا جيش الكا أني هالكلام بخليه خير قبته. هاي. بهالشيء يربى أسلك عيو. ديار ديوان كعرفنا. هدي معقولين نقط. هذيات.